maaliyadda marka maaliyadda financial accounting markii la diyaariyo dee sheekada meesha kuma eka weli waxaa jirto other stakeholders waxaa jirto daneeyayaal kale ee maaliyadaada eegaya tax accountantaa jiro xisaabiye canshuuraadka oo keliya u qaabilsan xisaabiyahaas wuxuu xisaabiyaa in dowladda waxa ay kaa filanayso uu xisaabiyo dowladdu waa stakeholder waxa weeye stakeholder weeye waa daneeye waa waxay daneynaysaa every business dowladda lacag ay maaragtay soo amaahato iyo lacag ay citizenskeeda ay ka qaado oo keliya ay ku maareysaa waxyaabaha infrastructure-ka iyo economic activities waxa loo yaqaano ay ku maareysaa marka caadi ahaan adduunka waa qasab canshuuraadka kama gaba kartid waa qasab weli canshuuraad systemka wadanka hadda ma degana laakiin wadan walbo adduunka ku yaalo canshuuraadku waa qasab waa arki doonaa ciday ku waajibto marka canshuuraadku marka lacagihii hadda aan dhahnay balance sheetkii hadda aan dejinay financial accountant soo dejiyay soo ma ahayn financial accountant kadib waxa usii maaragtay bilaabaya xisaabtiisii tax accountant wuu ka duwan yahay discipline kala weeyaan wax allaala wixii financial accountantiga uu soo sameeyey waxyaabuu wax ka bedelaya sidii uma qaadanaya waxyaabaha sida depreciationka oo kale oo hadday aan kasoo sheekaysano shaqo kuma laha maaragtay as tax accountantiga waa recharge uu sameynaya dib uu celinaya wax allaala wixii depreciation la jaray asiga dib uu celinaya wuxuu ku xisaabayaa equity uu kor u qaadaya si canshuur badan uu helo soo maaha laakiin waa qasab waa inaan baranaa soo maaha okay ujeedada canshuuraadka marka waa dhaqaale abuur waa wealth creation state kasto de guriga aabihiisa maaragtay la weydiiyaa wixii dhaqaale abuura soo maaha wadankana stateka markaas maamulka markaas joogaa la weydiiyaa dhaqaale abuur inay u sameeyaan si ay nolosha bini aadanka meesha ku nool wax uga bedelaan maaragtay perhaps in a good way okay taxation has a direct effect on the country's economy taxationka ama canshuuraadku waxay si toos ah saameyn ugu yeelanaysaa dhaqaalaha wadanka okay waa inaan taas ogaano waaye wadanka faqiirka ah wadanka taajirka ah waxay ku kala duwan yihiin waa nidaamka canshuuraadka iyo sida qaabka ay u aruuriyaan iyo qaabka ay u redistribute gareeyaan objectiveska laga leeyahay maxay tahay marka ahdaafta laga leeyahay taxationku waa maxay waa unemploymentiga wax in laga qabto shaqo abuur in la sameeyo bulshadaas meesha ku nool shaqo abuur si loogu sameeyo mashaariicdii lacagay u baahan tahay soo maaha lacagtii dee wax adduunka laga soo amaahday iyo wax innaga aan aruurinay noqonaysaa soo maaha marka si mashaariic loo dowladda ay maaragtay ama xukuumadda markaas joogto ay dadka ugu baahiso ay shaqo ay ka helaan ay faamiladoodii ay intifaac ugu yeeshaan waa in unemploymentiga taxationka wuxuu direct effect wuxuu ku leeyahay unemployment shaqo abuurka ama shaqo la-aanta inflation waxa loo yaqaano sicir bararka saameyn ay ku leedahay maaragtay canshuuraadku wadanka hadduu canshuur systemkiisa duu fiican yahay waxaa laga yaabaa subsidy waxa la yidhaahdo inuu siiyo sectorska ama maaragtay maxaa la koox farsameedyada u baahan inuu badbaadiyo beerahoo kalea abaar ka jirtaa maaragtay dadkii deganaa meesha kuma dhaqaalo ku filan oo dib u kobcin ay u sameeyaan ma hayaan waxaa laga yaabaa canshuurtii la aruuriyey iyo miisaankii dhaqaale baytulmaalkii in laga soo bixiyo oo maaragtay lagu soo kobciyo dadkaas meesha degan iyaguna ay marka isku filnaadaan ay magaaladiina cropskii ama wixii ay soo saareen ay u keenaan soo maha xoolahoo kale sidoo kale in la taageera u baahnaan karaa mararka qaarkood abaaraa dhici karo marka sicir bararkii caanaha lacagta lagu gadanayo dowladdu waxay dhihi kartaa is unacceptable maaragtay $1 ka badan lacagta laguma iibin karo maaragtay canshuuraadka lagu go-aamin karaa ama dowladda intaas dhiibaysa kasoo doonta jeebkeeda dadka laakiin intaas oga gadaa la dhihi karaa si maaragtay maxaan ku dahay nidaam dadka loo nooleynaayo loogu sameeyo dhoofinta iyo dejinta import export canshuuraadkaa lagu maareyn karaa iyadana waxyaabaha aan doonaynin wadanka inay naga yimaadaan canshuurtaadaan kor u qaadi karnaa waxyaabaha aan aad iyo aad u dhiirigelinayna canshuurtaan u dejin karnaa siday ganacsatada ugu dhiiradaan inay keenaan marka canshuuraadka waa nidaam really wealth creationka wax weyn ka qabanaya okay incentives waxay noqon kartaa dhiirigelin kayd inuu yeesho qofka waxaa la dhihi karaa qof walba shaqadiisa bishii hadduu maaragtay $100 banka ka dhigo
maxaan ku dahay waa ugu shaqaynaynaa lacagtaas intaas oo lacag ahaa sanadkii share uu yeelanaya caadi ahaan adduunka dulsaaraa la isa siiyaa laakiin islaamaan nahay annagu dulsaar ma qaadano dulsaarna marka dulsaarka laakiin wax ka duwan oo financial instruments dabcan way leeyihiin baananka hadda jiro waddanka jiro laakiin kaydka waa la dhiirigeliyaa waddanka kayd la-aan inuu noqdo ma aha dadkuna kayd la-aan inay noqdaan ma aha mar walbaba maalkaagu waa inaad u kala bixisaa waxaad isticmaalayso ayaad investment maalgashi samayn kartaa saasay bulshada ku kobacdaa waxaa la dhiirigelin karaa mucaawanada masaajid la dhisaayo haddaad wax ku darsato charity ahaan inaan canshuur lagaa goynin oo la dhihin lacagtaasaan shaqaystay okay $1 aan shaqaystay $500 laakiin ma aragtay maxaan ku dahay masaajid aan ku bixiyey okay masaajidkaas aan ku bixisay waa mahadsantahay masaajidkaas aad ku bixisay lacagta waa inaan canshuurtii lagaa raacsiinin oo 20% ama 10% ama 5% waxa canshuurta waddanka markaas ay tahay lagaa qaadin weeyaan lacagaha sadaqaadka aad ku bixisay waa inay bannaanka ka yihiin lacagaha la canshuuranayo caadi ahaan sida caalamiga ah discourage waxaa waaye incentive-kii ka soo horjeedaa waxyaabaha aanan la doonaynin ee la rabo inaan la dhiirigelinin maaragtay dowladda ay doonayso waxay canshuuro waaweynay saartaa sida wasaqaynta hawada oo kale global warming waxa la dhahayaa jira waxaa la aaminsan yahay maaragtay warshadaha dadka meesha ay ku nool yihiin laga dhisaayo inay caafimaadka u daran tahay marka maadaama caafimaadka ay u daran tahay waa in la sameeyaa deegaameyn ama environmental maaragtay regeneration waxa la yidhaahdo in geedo la abuuro in ceelal meesha laga qodo in waxaasoo dhan la sameeyo waa lacagay u baahan tahay marka warshadaha iska bixin kara ee productska noo soo saara ee waddanka maaragtay maxaan ku dahay siiyo bulshada siiyo ee customer leh oo lacagtaas ka faa'iido waa inay qodooda ka bixiyaan mashaariicdaas marka canshuur ahaana loo saaraya marka si indirect ah ayaa loo saarayaa wasaqaynta hawaday ka qayb qaadanayaan meesha ay degan yihiin kasoo qaad afgooy banaankiisa ay degan yihiin waxaa laga yaabaa meesha baari inay ku yaalaan waxaa laga yaabaa wasaqdii warshada inay ku daadanaysa baarihii ee dhaawac u geysan karto marka waxaa laga yaabaa marka in la saaro canshuuraad ah in kiimikadaas iyo waxaas si xirfadaysan looga qaado oo meel munaasib ku ah la geeyo canshuuraadkoodina iyaga ay bixiyaan sida balwadoo kale sigaarkoo kale iyo qaadkoo kale waxaa laga yaabaa canshuurta in lagu maaragtay canshuurta in lagu badiyo si jeebkii uu u cuslaado oo bulshada jeebkeeda u naxdo oo waxaas la iskaga daayo marka iyadoona dhihin la jooji iyadoona lagu qaylinin jeebka in lagala sheekaysto oo maaragtay wixii xun canshuur ahaan canshuurtii lagu qaaliyeeyo sida hadda yurubta ay sameeyaan sigaarka canshuurtiisa aaday qaali u tahay 1970 iyo maanta sigaar cabka markii censuska la sameeyey waa waxaana isu dhoweyn aadaa loo cabi jiray waagii hore haddana way soo dhammaatayoo heer waxaa la marayaa in dowladda awood ay u yeelato sigaarka inaan lagu cabi karin public places meelaha dadka isugu yimaadaan inaan lagu cabi karin ama maqaayad ha ahaato ama hotel ha ahaado ama diyaarad ha ahaato ama bas la raacay ha ahaato gurigaaga ku cab gurigiia hadda maaragtay maxaa sharciyo cusub laga soo saaray oo la leeyahay ilmahaagu inaad dhaawac u geysato maaragtay munaasib ma aha sidaas darteed laguma cabi karo heerkaasaa la maraya marka waa ogolaasho dadka bulshada ka timid weeyaan oo iyaga ay weydiisteen shuruucdaas in lasoo saaro okay ujeedada canshuuraadka aad noo sii socoto sinaantaa ku jirto waxaa kala jiro sinaanta marka collection and iyo distribution collection waa ururinta distributionna waxa weeyaan maaragtay dib uu maaragtay gelinta ama baahinta lacagihii lasoo ururiyey iyada qudheedu waxay u baahan tahay sinaan iyo cadaalad in lagu qabto oo accountability ay jirto oo wax maaragtay maxaan ku dahaye la dheehan karo ama reports ay jiraan haddii kasoo qaad waddanka hadda waa weyn yahay intaasoo gobol ayaa la wada degan yahay canshuurihii la qaaday ma noqonayso hal gobol oo keliya in lagu dhiso oo gobollada kale maaragtay aanan lagu dhisin marka tirakoobka dadka siday canshuurta ay ugu timaado in loogu celiyo oo loo qoondeeyo ayaa habboon marka collection and distributionka maaragtay sinaanta ama maaragtay equality ayay wax ka taabanaysaa canshuuraha waa kala duwan yihiin nidaam waxaa jira progressive la yidhaahdo progressive taxation waxaa la yidhaahdaa canshuurta kororta mar allaala markuu jeebkaaga kordho oo lacagihii ku soo gelaya ay kordhaan canshuurtaaduna way kordhaysaa
progressive taxation la yidhahdaa nidaam ka soo horjeedaa jiro oo regressive taxation la yidhaahdo mar allaala markuu jeebkaaga kordho canshuurtii way kaa yaraanaysaa wadamada qaarkood waxaa laga yaabaa investment inay dhiiri gelinayaan wadankii in la yimaadaa rabtaa soo maaha mashaariic in la fuliyaa rabtaa haddaad dhahdid marka jeebkaaga hadduu kordho lacagta kordhaysa waxaa laga yaabaa inaan aadan helin dadkii targetka ahaa inaadan helin marka waxaa leedahay maalgasho meesha 20% aan ka qaado maaragtay dadka adigu intaasaan kaa qaadaya oo ka yar laakiin dadkii shaqaha kaa helaan maxaan ku raday shaqaalihii tababarha kaa helaan maaragtay capacity-gii wadanka kor ha u kaco okay waxaa jira proportional taxation wax la yidhaahdo nidaamkan isbedel ma leh jeebkaaga ha kordho ama yo kordhin wax go-aanaa lagu dejiyey intaasaa bixinaysaa waa proportional taxation wadamadu way kala duwan yihiin ad valorem principle wax la yidhahdaa jirto nidaam waxa weeyaan sida sales taxka oo kale sales tax waa naqaanaa VAT aan u naqaanaa soo ma halkan VAT-gu waxa weeyaan iibkuu dul fuulaa iibka ayuu dul fuulaa haddaad iibsato shay $100 ah xamar hadda 5% inay tahay umalaynaya $105 maaragtay uu ganacsigu kugu charge garaynayaa ganacsiga ayaa indirectly ururinaya lacagtaas dowladda kula xisaabtamaysa rasiid ahaan dowladdu siinaya 5%-gii $5 $100 uu ka ururiyay dowladdu u gudbinaya adigu laakiin $105 baa laga qaaday laakiin dowladda waxa isla xisaabtamayo cidii ganacsigaas lahayd marka nidaamka sales tax la yiraahdaa ama principle kan ad valorem ke hoos imaanaysa VAT systemna waa loo yaqaanaa okay marka noocyada taxka types of taxes aan sheegno taxka muxuu u kala baxaa canshuuraadka employment tax jirto canshuurta shaqaalaha maaragtay laga doonayo marka waxay ku waajibtaa shakhsi kasta oo shaqeynaya okay employment tax haddaa shaqo heshid maaragtay waxaan ka sheekeynaa hadda nidaamka UK aan ka sheekeynaya aniga oo caalamiga ah adduunka meel walbana laga isticmaalo laakiin nidaamka wadanka waqti xaadirkan ma u malaynayo employment tax inay maaragtay jirto cidda dowladda u shaqeysa mooye dadka maaragtay caadiga ah shaqeysta maaragtay bulshada caamka ah weli canshuur oo shaqaalaha la dul saaray maana maqleen waxaa jirto national insurance waxa la yiraahdaa caymiska qaranka jirto oo waxyaabaha maaragtay wadanka aadka iyo aadka ugu muhiimka sida caafimaadka waxbarashada waxyaabahaas oo kale laga taageero iyo maareynta aafooyinka oo kale lacag caymis oo loo dhigay qaranka reserve ayaa jirto waa qaranka markuu isku xiran yahay ummadana isku xiran tahay national insurance wuxuu ku waajibaa qofka maaragtay shaqeynaya iyo qofka loo shaqeynaya labadaba okay waxaa jirta capital gains tax waxa la yiraahdo capital gains waxa la yiraahdaa mar allaala markaad ma aragtay maxaan ku daayay iska iibiso hanti maguurta ah waxa ku dul fuulayso ma aragtay canshuur ayaa ku dul fuulayso capital gains tax loo yaqaana waxaa jirta canshuur loo yaqaan inheritance tax oo ah dhaxalkay dul fuushaa markaad lacag ma aragtay aad u tiro badan ama hanti aad ka dhaxasho ma aragtay waalidkaaga oo kale waxa ku fuulayso canshuur iyadana nidaam loo maray leedahay waxaa jirta corporation tax waxa la yiraahdo ama shirkadaha canshuurta ay bixiyaan shakhsigana waa gooni shirkaduna waa gooni way kala baxsan yihiin xataa shakhsiga milkiilaha ah tii shakhsigana gooniya looga qaadaya tii ganacsigana gooniya looga qaadaya haddii jirtaba faa'iido inta la eg waxaa jirta sales tax oo hore aan u soo marnay oo ah tii VAT-ga ahayd ee qofka isticmaalaha ah dul fuulaysa marka direct and indirect ay u kala baxaan taxation-ka toos mid dowladda ay u qaadayso iyo mid si indirect ay u soo marayso qofka milkiilaha ah marka tan direct-ga waxaa ka mid ah dakhliga waxaa ka mid ah maaragtay maxaan ku dahay shirkadaha waxaa ka mid ah iibka raasmaalka waxaa ka mid ah dhaxalka tan aan tooska ahaynna tan nidaamka canshuuraadka ee hore aan uga soo sheekeynay ayaa ka mid ah qaab dhismeedka nidaamka UK markaan sheegno marka waxaa wasaaradda maaliyadda ama treasury department ayaa mas'uulka ah maareynta canshuuraadka the chancellor ama wasiirka maaliyadda ayay toos u hoos timaadaa canshuuraadka iyo maamulkooda iyo maareyntooda iyo diyaarintooda intaba asigaa awood buuxda u leh ururinteedii iyo qaybinteedii iyo dejinteedii sharci ahaan intaba maamulka waxay u igmadaan marka wakaalad caadi ahaan shaqadu way badan tahay wakaalad gooni ah oo arrintan ku shaqo laha jirto
wakaaladdan waxaa loo yaqaanaa HMRC, Her Majesty's Revenues and Customs aa loo yaqaanaa, dakhliga iyo canshuuraha badda ay aruuriyaan, customs waxa kasoo galo canshuuraha import export iyo waxaas ku shaqo lah. Marka HMRC loo xil saartay, wasaaradda maaliyadda ay u xil saaratay in ay canshuuraha u soo ururiso una maareyso. Marka waxay u kala qaybsamaan marka waaxyo deegaan iyo waaxyo xisaabiye iyo waaxyo bixin payment centers waxa loo yaqaan ee u sii kala baxdaa wakaaladaas. wakaaladda markay intaas usii kala baxdana xafiisyadii deegaan ayaa waxay usii kala baxaan haddana waxay ka shaqo galaan shaqo maalmeedka wakaaladda, wax walba marka day to day activitieski iyaga dusha ay ka saaran tahay. xafiisyada xisaabeedna waxay qaabilsan yihiin bixin iyo maamul intaba. xafiisyo bixin u qaaska ana way jirtaa oo payment centers la yihahdo. Okay, tax calculationka marka sidee wax loo xisaabaa? taxeska waxaa loo kala qaybiyaa waxa loo yaqaano saving iyo non saving. dakhliga aan kayd ku jirin waa non saving, iyo kan kaydka ah oo ah saving, iyo ka saamiga ah oo dividends. marka non saving income, saving income iyo dividend income ayaa loo kala qaybiyaa. non saving income-ka waxaa hoos yimaada marka faa'iidada ganacsiga. haddii aad ganacsiga ka faa'iido waxay hoos imanaysaa non savingka. waxaa ma aragtay laga jarayaa khasaare hore hadduu jiro. company aan leeyahay $1,000 sanadkan khasaaray, waxaa la ii ogol yahay, nidaamku ii ogol yahay sanadka dambe haddaan $1,000 faa'iido inaan la isku bixiyo canshuuraan laga qaadin. marka waxaa jirto waqti oo aad ma aragtay forward garayn karto ama roll forward aad dhihi karto. laakiin haddaad khasaaro sanadkan gasho, waxaad khasaarahaagii aad u gudbin kartaa sanadka soo socdo bayaanka maaliyadda markaad diyaarinaysid, in aad lagaa maaragtay canshuurtii aan lagaa qaadin ay kuu baaqato, dhaawacii hore kugu dhacay si lagaaga ceymiyo. shaqada lacagaha ka yimaado employment income-ka ah ayaa non savingka soo hoosgelaya. columkan dhan waxaan leenahay non saving columka koowaad oo ah dakhliga aan kaydka ku jirin. kayd kuma jiro, waa dakhli maaragtay maxaan ku saving ma aha. saving waxaa la dhahaa lacagta bangiga u dhiibtay ee kugu jirto saving account ee aadan soo baxsan karin meesha ku jirtaa la yihahdaa. tan current accountiga ee aad ku shaqaynaysid waa non saving. hantida marka hantida ayaa soo gelayso, hantidaada ayaa soo gelayso meeshan in canshuur laga qaado. saamiga wuxuu soo hoos imanayaa column gooni ah uu leeyahay. saamiga columnkaasoo hoos imanayaa caadi ahaan markii la xisaabayo. bangiga iyo dulsaarkana waxay imaanayaan saving income ay hoos imanayaan. marka saddexdaas aan kala qaadnay. jamaca dakhligaaga sidaasaa ku ogaanaysaa marka saving income, non saving income-kaagi iyo dividend-kaagi iyo saving income-kaagi markii la isku wada daro ayaa waxaa la isku leeyahaa total income. total income-kaagi ayaa ma aragtay maxaan ku dahay waxaa laga jarayaa marka dulsaarka iyo khasaaraha sanadkan. haddaa waxaan lehnay khasaarihii sanadkii hore, sanadkan laftigeeda aan ku jirna hadduu khasaaro jiro halkaasaa lagu qorayaa. kadibna dakhliga saafiga ah soo baxaya markii lagaa jaro intaas. dakhligaaga saafiga ah ayaa marka waxaa laga jarayaa gunno loo gooyey sanad walba qofka inuu ku noolaado inay ku filan tahay. UK oo kale hadda 11,500 ay maraysaa. haddii aad shaqaysato 11,500 oo pound oo u dhiganta 1.3 markii lagu dhufto lacag ilaa $16,000 marka waxaa waaye dakhligaas haddii kuu soo baxo faa'iide ahaan dowladda wax lacag kaa qaadi mayso. waa intii loogu talagalay inaad ku noolaato. waxaa waaye waa la qoondeeyey. marka dakhligaas ayaa laga jarayaa, lacagtaas lagu ogol yahay ayaa laga jarayaa dakhligii saafiga ahaa ee ay haysatay. wixii soo baxay ayaa lagu dhufanayaa marka canshuurta ratekeeda. wax walba waxay tahay UK oo kale 20% waa hadda, Soomaaliya 5% weli inay maraysaa aan rajeynaya.